بسم الله الرحمن الرحيم. مرة بعض من دمانتين سودوينيا. برنامج واحد قايبين دونا صدق قايبات. قايبتو كبار واحد يصير كل تاج دونا. مادام مصابون دقيقة مصور شيء أنا مصابون دقيقة نظام مصور أو الدولة ده وصور شقيا. نظام هذا كذا وحوار نرينا هملية. إن نصير كل تاج. يا وحوار فريليس كسوفر كذا. قايبت طلبات إن النظام مصور شيء إن نقاب وشقينا يوم عن شرحنا. يا قايبت استحاد مادام النظام كان أمبلنا هاي. أنا وجعلنا هاي إن لقاطه أما ونافعي إذا كنا أنا أريد الرضا وحنا قيد استحالنا بالسكوتين هنا إنه واحترك ويرد دونا نظام كان يقول كذا وناكره كي خرج ارتبط كوبات حتى قيد كوبات أنا سود هذا وحنا هاي قريال دقة هرجيسو كلا صار مسوق هذا محك كوبا كلها دقة كومي هاي شن يلا باتن حبنا شن يلا باتن حبنا مركز الارتقاء كوش قيان وقوله وشراء سيدي برلمان أوكله oo laga yaabo inaan musharax xildhibaan kasta shaqo joogto ah lahayn marka laga yimaado xildhibaano dhowr ah oo lagu attach kareey degmooyin waxa laga yaabaa in xildhibaan kasta yani ay isku yimaadaan kaliya markii ay mooshin jiro ama arrin weyn hawl weyn oo shaqo ah oo qabta ay jiraan laakiin aanu xildhibaan kasta mas'uuliyad gaar ah oo sidaa u balaaran aanu lahayn arrinta labaad waxa weeye xildhibaanada qaabka loo doorto hadda markaan eegno ma jiro degmooyin xadidan ama dhul xadidan oo constituency u noqon kara xildhibaan goob laga soo doortay oo u gaar waxaa laga yaabaa in hal xildhibaan degmooyinka Hargeysa ka kooban tahay oo dhan looga coday marka taasina waa dhibaato labaad weyn oo waxaa laga yaabaa inay isla xisaabtanka iyo arrimo noocaas ay yarayso maadaama oo aan xildhibaan kasta degmadii laga soo doortay ama constituency laga soo doortay aan dhex joogin oo ka dhex shaqeyn waxa adag in la ogaado ama xildhibaankaasi ama dawladda hoose ay ka warhayso degmo kasta iyo area kasta magaalada ka tirsan baahida gaarka ah ee taala inay ogaadaan baa laga yaabaa inaad kaadaan sidoo kale waxa jirta isla xisaabtan yani xildhibaanada qaar waxa laga yaabaa in saddex degmo kala duwan codka loo gargay marka si xildhibaanadii loola xisaabtamo leeyahay degmada waxba kama yada qaban degmada kale waxba kama yada qaban inaan yani xildhibaankii laga yaabo uu shaqada xarunta dawladda hoose oo aanu degmooyinkii u ahayn accountable ama aan la xisaabtami karin dadkii aanu ku noqon karin degmadii dadkiina aanay gaari karin oo aan la xisaabtami karin marka isla xisaabtankiina imika uu adag yahay oo yani xildhibaano badan deegaanadii laga soo qabto waxa laga yaabaa inaanay ama war badan ka imaana ama aan dib ugu noqon badan nidaamkan intuu shaqaynayay wax qabadkiisa aad baan u wada dhalsanahay bulshaahan dhinac kasta marka la eego qaabku uu shaqaynay nidaamku aad baan u dhalsanahay marka taasina waxa weeyaan in horumar badan oo la taaban kara aanu keenin soo far nidaamkan intuu shaqaynayay oo taasina ay jirto arrinta kale jirta waxa weeyaan markaan eegno qaabku uu shaqeeyo dadku inta badan waxa la xisaabtaan meeyarka kaliya hawshu waxa ku dhacdaa un meeyar marka meeyarkiina wuxuu noqday kursi muhiim ah oo focuskii magaalada dhan saaran yahay sidaa awgeed kursigii si uu ilaashado meeyarkii inuu xubnihii kale iska ilaaliyo ama iyaga maxaan dhahdaa uu dhinac kala noqdo si uu kursigiisan uu ilaashan lahaa uu secure garan lahaa ayuu xildhibaankiina meeyarkiina ku mashquulay shaqooyin badan u qaban lahaa wuxuu kaga mashquulay khilaafka dhex yaalla golaha deegaanka iyo inuu kursigiisa ka ilaashado xildhibaanada kale qaabka doorashada u dhacda marka dheer 2012 kale 7 urur baa ku tartamayay wadanka ogolayaasha deegaanka soo shaqeeya يعني هرجيسو كله تضبط أورو كستاسو شرح حشان يلا بعتنا حبنا واحد ترتمي حبنا وتربلا كو خرج من بين جاب حي ترتك الدور شوي كذا لبا واحد عظيم طبيعته أي ملحم جاي ما دامه يعني لقى يا بخير كستاين مسكوتين وتضبط من كسر شرحه تضبط أورجع تاسر واحد سعيد سين ترك كلا قايب سماع أو أي خوص وصي كلا برمان وقبيلة بين كلا marka arrimaha soo marka deegto oo wax qabar la'aantu ugu muhiimsan tahay dhaliisha dareen dib jirta ee soo noqotay waxaan moodaa in nidaamkan aad u badan yahay dhaliishiisa iyo fashilkiisa ay badan tahay marka anagu waxaan halkan rabnaa inaan ku soo jeedino nidaam bedel u noqon kara nidaamkan hadda jira ee dawladaha hoose u shaqeeya oo ah soo jeedin aanu jecelahay inaan marka koobaad dadkiinan aanu marashan ku soo martay qaadnay aanu aragtiyihiina iyo feedbackiina ururino kadibna aanu u gudbino cidda khusayso oo ay tahay xisbiyada dawladda baarlamaanka haddii hadhow loo baahdo in barnaamijka lagu dhaqaaqo taageerada aynu haysanaa ay ballaarato waxaan isku dayi doonaa in sidii mooshin loo heli lahaa baarlamaanka loo mariyo inaynu iyadana hawsheeda galno ama petition dadka ka qaadno ama xildhibaanada laftooda ama dawladda dhinaceega aan soo marno dadaallo noocaas aan samayn doona marka hadda waa soo jeedin nidaamku siduu guud ahaan u shaqaynayo laakiin technically marka hoos loo daadiyo wax badan baa dhiman oo aanan halkan kaga hadli doonin oo tusaale ahaan markaanu sheegno degmooyinka qaabka u shaqaynaya qaabka xisaabta ku noqonayo qaabka wada shaqaynta noqonayso revenue sharingka sidee loo qaadaya cashuuraha arrimahaas oo dhan hadhowgaan si technically oo qori doona
oo aanu dib ugu noqon doonaa nidaamyadan wadamada isticmaalay ee aynu ka soo dheeganayno laakiin hadda si guud nidaamku soo shaqeynay ayaynu dul istaagi doonaa marka waxaan tusaale soo qaadanaa Hargeysa si aanu Hargeysa ugu dul sharaxnay nidaamka iyo siduu u shaqeyn karo waxaan ka soo qaadanaynaa in Hargeysa marka magaalooyinka markooda waxaan u qaybinaynaa degmooyin waaweyn marka waxaan ka soo qaadanaa in Hargeysa aynu u qaybinay 5 degmo oo waaweyn 5 degmo ee waaweyn waxay noqonayaan 5 dawlad hoose oo kala madax bannaan 5 degmo waaweyn degmo kasta waxay noqonaysaa dawlad hoose oo madax bannaan tusaale ahaan xilaa taka joog dawladda hoose xilaa taka joog dawladda hoose koonfur dawladda hoose Axmed Dhagax Maxamuud Haybe Gacal Libax sidaas inaynu dhaahno 5 dawlad hoose oo kala madax bannaan ayaynu u samaynaynaa magaalada u samaynaynaa dawladda hoose ee kasta waxay yeelan doontaa hal qof oo kaliya oo noqonaya ama mayorka degmadaas dawladda hoose degmada ama gudoomiyaha dawladda hoose degmada hal mayor oo kaliya ama hal gudoomiye oo kaliya ay yeelanaysaa oo la doortay laakiin shaqadii guud degmadu tusaale xilaa taka joog tusaale soo qaadano degmada xilaa taka joog dadku waxay dooran doonaan hal qof oo noqon doona mayorka degmada xilaa taka joog halka qof mas'uuliyadiisa waxay noqon doontaa xuduudaha degmadaas inta dhexdeeda ah oo kaliya inuu mas'uul ka ahaado oo uu ka shaqeeyo ayay noqonaysaa dadkaas marka gudoomiyaasha ah ee la dooran doona xaruntooda waxay noqon doontaa degmada dhexdeeda shaqaaluhu waxay noqon doonaan iyo qalabkiisa waxay noqon doonaan mid ay dawladdu hoose ee degmadu ay gaar u leedahay ayuu noqon doonaa marka saddexda xisbi markaynu dooranayno waxay sharaxayaan halkii ay 25 musharax oo degmada ah xisbi kasta ka sharaxi lahaa saddexda xisbi waxaynu 7 qof ay tartami lahaayeen doorashada soo socotay 2019 ama kuwa ka dambeeya waxaan aanu soo jeedinaynaa in 5 degmo waaweyn ama intii way ka badan kartaa markii degmooyinka waaweyn loo kala xadeeyay magaalada ama in kooxii isbedelay jiray marka dhacay intay yihiin marka loo eego in xisbi kasta maadaama hal position oo dadka oo la dooranaya uu jiro degmo kasta xisbi kasta inuu soo sharaxo hal qof saalahan xisbi saddexda xisbi inuu xisbi kasta 5 qof 5 degmo ka soo sharaxo marka waxa tartamaya 5 qof oo xisbi ka saddexda xisbi ka kala socda waxay noqonayaan 15 musharax ayaa ku tartamaya doorashada golaha deegaanka waxaana ka soo baxaya 5 qof oo noqonaya meeyarada degmooyinka waaweyn ee ay Hargeysa ka kooban tahay 5 degmo ee Hargeysa ka kooban tahay noqonaya ay ka koobnaanay ay noqonaya marka waxaynu nidhi halkaas 15 qof baa ku tartamaya degmooyinkaas oo ka socda saddexda xisbi waxaana soo bixi doona 5 meeyar degmo oo degmooyinkaas si gaar ah uga shaqeyn doona meeyar kasta oo la doortay wuxuu mas'uul ka noqon doona degmada loo doortay oo kaliya maadaama degmooyinka kala xadeysnaan ee halka imika ay dawladda hoose saarahan ay xildhibaan ku ataaj gareen si degmadii laga soo doortay ama laba xildhibaan mas'uuliyadda xildhibaankaasi waxay noqon doontaa meeyarkaasi degmada laga doortay oo kaliya dhinacna ugama bixi doono oo degmada ku xigta mas'uulka ayaa mas'uul ka noqon doona hawsheeda hayn doona marka si kooban degmooyinku saas u shaqeyn doona marka laga yimaado degmooyinka dawladaha hoose ee degmooyinka waxaa jiraysa dawlad hoose oo weyn oo metropolitan municipality aan oran doono oo ah dawladda hoose ee weyn ee caasimada Soomaaliya Hargeysa oo kale hadaan ka soo qaadno dawladda hoose weyni waxay yeelanaysaa hal mayor sometimes the mayor iyo mayor ku xigwan qaadan karna inagoo ka duulayna wixii caqabadaha iman kara hadhow ama hawsha balaarkeeda hal mayor hal doorto oo karnaa mayor iyo mayor ku xigwan laakiin hadda hal mayor Soomaaliya soo qaadan caasimadu waxay yeelan doontaa mayor guud xisbiyadu marka laba hab ku iman karaan meerku marka nidaamyada dawladda soo shaqeeya laba hab ku iman karaan kow in uu xisbi kasta sharaxdo qof meeyar u tartamo dadna ay ku tartamaan caasimada 3 meeyar oo ka kala sharaxan 3 xisbi inay ku tartamaan taas waa mid labaad oo samayn karnaa nidaamka taraan turkiga oo kala isticmaalo inaynu nidhaahno xisbiga degmooyinka ugu badan kuraasta ka helay xaqaatu meeyarku si ay wada shaqayntu u fududaato iyo wada shaqaynta iyo xidhnaanta meeyarka guud ee meeyarada hoose si ay u fududaato in xisbiga ugu badan laakiin maadaama la isweydiin karo legitimacy-ga qofka ay soo nominadeeyeen xisbiga waxa amalaha ka qurux badan inaynu nidhaahno 3 xisbi 3 musharax soo sharaxdaan oo meeyarada guud u tartama dabeetana 3 meeyar hala kala doorto oo dadku ha u kala codeeyaan marka qofku marka uu codeynayo degmadu muwaadinku marka codeynayo laba sanduuq uu ku kala ridaya mar wuxuu codeynayaa degmadan uu ka tirsan yahay oo isagu ku nool yahay meeyarkeedii gaarka ah marna wuxuu codeynayaa meeyarkii guud ee xisbiga ee magaalada ayuu codeynaya
قصرنا معها كل قف إنه قف عدو عدنين حسب كشرحين أما لا بحسب كشرحين لكن سواء حسابتنا يا قف كان صدوق ما كان عشقنا دقمده صدوق ما كان عشقنا عاصمة يقول صدوق ما كان وحشرنا مركب إلا كان حددوا أي الوضع هنا يا شقوين كدقموين كهو دولة هوسيد دقموين كه يدولة هوسيد إلا كان حددنا مرسم marka shaqooyinkan caadiga ah naqaano qashinka nadaafadiisa wadooyinka waxa degmada dhexdeeda laga saarayo arrimo badan waxa ku shaqeeyay doona dawladda hoose ee degmada ay mas'uuliyadda dawladda hoose waxa qaban doontaa koow adeegyada waa horta marka koowaad coordination role beelan in isku xidho degmooyinkan dawladaha hoose ee degmooyinka in isku xidho waa shaqadeeda koowaad sidoo kale iyada maamulka xagga sare ka maamuli doonta shaqo degmooyinka gaar ah iyo meeyo waa uu ribood garanaya marka waa shaqo isku xidh degmooyinka iyo shaqo maamul oo maamulkii weynaa iyada haysay degmooyinka hoose inay iyadu saas u maamusho laba inay qabato hawlaha waaweyn ee ka baxsanaan kara awoodda dawladaha hoose ee degmooyinka ama dawladaha hoose gaargaarka shaqooyinka ka baxsanaan kara inay qabato marka shaqooyinkaasina waxay noqonayaan saalahan hayweyada ama jidadka waaweyn ee caasimada dhexmaraha dawlaha oo laga yaabo inay degmooyinka oo dhan kala gudbaan ama degmooyinka oo dhan dhex maraan oo aanay degmo kaliya si gaar ah mas'uuliyadda u qaadi karin inay qabtaan shaqooyinkaas shaqooyinka qaban karaan waxa kamid ah bariishada oo kale malaha in kastoo ay malaha wasaaradda hawlaha mas'uul ka tahay in bariishada iyo jidadka halbowlaha iyo wadooyinka waaweyn sidaas oo kale hawlaha waaweyn sidaas oo kale saarxan qashinka ay degmooyinka gurayaan meelihii ay ku qubi lahaayeen goobaha qashin qubka caasimada oo kale inay u diyaariso master balaanka guud ee caasimada oo kale inay iyadu diyaariso qorsheynteeda arrimo noocaas marka hadhow inay waxay sidoo kale bixin kartaa adeegyo dawladda hoose hadday awood yeelato sida dawladaha caalamka waxay bixin kartaa adeegyada aasaasiga u ah nolosha bulshada adeegyadaas waxaa ka mid noqon karta gaadiid dadweyneena bixiso public transportation waxaa ka mid noqon kara lightka adeegyada biyaha adeegyada tusaale ahaan baarkis dadku ay ku nastaan waxyaaba lamid ah arrimo noocaas waaweyn inay ka shaqayso dawladda hoose oo ay bulshada adeegyo u gudbiso marka qaabka u shaqeynayna haddaynu eegno kulli waxa ay noqon doontaa in dawladda hoose ee degmadu khaasatan meeyarka degmadu inuu u ribood gareeyo meeyarka guud ee caasimada inuu u ribood gareeyo sidoo kale waxaa la kala xadayn doonaa cashuuraha soo kala qaadayaan waxa kala xadayn doonaa sida revenue ugu qaybsanayaan tusaale ahaan degmo kasta waxaa laga yaabaa in cashuur degmadu ka soo xirato degmadaas inay percentage ku lahaato dawladda hoose weyni inta badanna degmada lagu celiyo si markaad wax qabadka degmadu uga dhex muuqdo degmada wax qabadka uga muuqdo oo iyo hawshii ay qabanayeen dawladda hoose gaar in dakhliga badankiisa degmada lagu celiyo 20% oo kale ama wax ka badan 10% oo kalena dawladda hoose weyn la siiyo ee caasimada ay lagu contribute gareeyo maadaama oo dawladaha hoose ay kabna ka helaan dawladda dhexe in kabkaas oo kale dawladda hoose weyn oo kale uu gaari karo oo ay dabadeetana sidaas shaqadana loo kala xadayn karo oo shaqadana sidaa u socon karto nidaamkan marka aynu ka soo sheekaynay ee ah in degmo kasta ay yeelato dawlad hoose oo gaara iyo meeyar gaar oo gooniya kaliya oo la doorto wixii ka hooseena ay noqdaan shaqaale u ka hoos shaqeeya meeyarka iyo siyaasadiisa ku shaqeeya iyo in dawlad hoose guud la sameeyo nidaamka noocaas maxaa wax tare ka dhalan kara ayuu isleeyahay marka dhowr qodob ayaan naga noola muuqataa in laga faa'iidi karo in la qaato nidaamkan aynu hadda soo sheegnay ama aynu ka soo sharxay oo marka koobaad maadaama degmo kasta ay maamul gooniya leedahay oo laga baxay in caasimadii hal meel uu ku xidhnaato shaqadeeda ay ku xidhnaato in degmooyinkii ay horumarkii ku tartamaan dawladihii hoose degmooyinka ay u tartan horumar u dhex maro degmadii halkan iyo degmada kale sidoo kale waxaa meesha ka dhex muuqanaysa in xisbiyada laftoodii ay ku tartamaan degmooyinka oo tusaale ahaan laba degmo iska xiga waxaa laga yaabaa inay laba xisbi ku kala guulaystaan maamulkeeda iyo meeyarnimadeeda in xisbiyada laftooda laga dhex arki karo waxa qabadkoodii oo ayaga laftoodu sidaa si noocaas ugu tartami karaan horumarkii ayaa marka koowaad meesha imanaya marka marka koowaad waxaan fili karnaa inay degmooyinku horumarka ku tartamaan taas waa arrinta labaad in qabyaaladu yaraato sidee qabyaaladu yaraanaysaa oo marka koowaad marka la yiraahdo degmadu ha soo sharaxdo xisbi kasta hal qof oo kaliya waxa laga yaabaa inuu qof xisbi yahay markiisa hore dadna xisbigaas cidii laga soo sharaxo ku qasbanaado inuu taageero ama ma aha inuu saddexda xisbi kala doorto ilaa qofkaasaan aaminsanahay inuu wax qaban karo maadaama optionskii la soo koobay oo la soo ururiyey
oo laga yaabo in meeshii saddex qof oo kala degmada ka sharaxay dadku waxay ku qasbanaanayaan inay ka tanaasulaan inay u codeeyaan qof ay isku reeriyiin oo degmada kale ka sharaxaan ama qof ay isku reeriyiin oo laga yaabo in aanu ahayn qofkii ku aboona dowladda hoose degmada sidii la rabay ama degmada wax qabadkii la rabay u soo celin kara inuu yahay marka qofku wuxuu ku qasbanaanaya kow inaanu gacmaha ka laaban doorashada waxa laga yaabaa doorashooyinkii hore in dad badan gacmaha ka laabteen doorashada lafteedana waxa muuqata maadaama dadka ay ku dhalinayaan dowladaha hoose hadda jira inay fashilmeen in laga yaabo inaanay dad badan halka wax ka sixi lahaayeen aanay ka qayb qaadanba marka si looga qayb qaato waxay noqonaysaa in qofku marka koowaad uu ku dadaalo xisbigiisu ciddu soo sharaxayo inuu qayb ka noqdo dadaalkeeda oo uu ku dhiirigeliyo inuu qof la nominate gareeyey uu u dadaalo sidii uu qofkaasi musharax u noqon lahaa uu iman lahaa meesha qofkaana hadhow ugu qancin lahaa bulshada sidii uu qofkaa loo dooran lahaa hadhowna inuu la shaqeeyo marka meesha waxa laga baxaya qabyaaladii waxaynu focuska saaraynaa horumar iyadana qof maa degmadeena waxu qaban kara maadaama degmooyinkiina ay tartamayaan inaynu eegno arrinta labaad waxay noqonaysaa in maadaama dowladdii hoose ay degmadii ku taalla xarunteeda oo halkan aad wada joogtaan maayarkii aad dooratay ee degmadaada iyo shaqaalihiisii iyo qalabkiisii iyo xaruntiisiiba ay degmadii ku dhex yaalaan kow waxaa imanaya iska warhayn in dowladda hoose ay ka warhayso ee degmadu baahiyaha degmada yaalla isla markaana ay prioritize garayso siday u kala muhiimsan yihiin ay u kala qaado degmooyinka baahiyahooda deedna ay mid kasta sidii u kala horeeyaan ay u kala qabato hawlahaas waa mid arrinta labaad maadaama ay degmadii ku dhex yaallaan waxaa fududaanaysa isla xisaabtanka waxaa laga yaabaa iminka degmooyin badan dadkii ay u codeeyeen xildhibaanada ahaa inaanay ku soo noqon in isla markaana haddii ay la xisaabtami lahaayeen maadaama uu joogo xildhibaan ama aanu shaqo joogtaaba lahayn oo xataa aanu xaruntii dowladda hoose weyna jooginba inta badan oo aan laga heliba inaanu isla xisaabtan jirin oo maxaan odhan karnaa isla xisaabtankii u dhexeeyey dadkii constituency-ga xildhibaanka laga soo doortay iyo dadkiisi ay meesha ka maqan tahay marka taasina way fududaanaysaa mar haddii guddoomiyihii degmadu ama meeyarkii degmadu ee dowladda hoose uu degmadii dhex joogo wada shaqayntii iyo iska warhayntii baa fududaanaysa iyo isla xisaabtanka sidoo kale waxaa fududaanaya qodobkaas wada shaqaynta inaad soo jeedin karto idea qofka muwaadinka uu soo jeedin karo in ay dadka la tashan karaan degmooyinka dowladaha hoose degmooyinka ka dhex jira inay dadkii la tashadaan oo dadkii la shaqeeyaan dadna dadkii ay wada shaqaynta qayb ka noqdaan maadaama saanu sheegnay dowladda hoosena ay degmadii u shaqaynayso inkastoo qofka ay tahay sida looga arko shaqada inuu degmada yacni bulshada u shaqaynayan kale tartana ay ku jiraan degmooyinka dadka laftoodu inay dadaalaan oo ay projectiska ula yimaadaan dowladda hoose oo ay soo jeediyaan tusaale ahaan oo ay yidhahdaan xataa ganacsatada degmadu iyo shacabka degmadu contribution ay ku daraan sidii degmooyinkaas uu horumarku hore ugu socon lahaayeen dowladda hoose wixii capacity ka baxsan ay uga caawin lahaayeen dhaqaale ahaan farsamo ahaan aqoon ahaan maadaama degmadiina loo wada shaqaynayo dadkina ay arkeen cid u shaqaynaysa tartankii degmooyinkuna uu jiro oo tartanka laftiisa uu ku dhiirigelinaya dadkii degmada deganaa inay qayb ka noqdaan dadaalada degmada ka socda si kooban waxtarkana waxaan kusoo koobi lahayn intaas marka waxaa jira wadamo badan oo nidaamkan isticmaala wadamadaas waxaa ka mid ah turkiga waxaanu tusaale uga soo qaadan karnaa si gaara istanbul oo rag badan waxa ka fadhiyo kolley aan mar wax ka baran jirno oo deganayn ayna tahay tan ugu dhiirigelisay inaan bal nidaamkooga eegno sidaynu uga faa'iidaysan karnay iyo waxtarkiisa iyo qaabka uu shaqeeyo aanu yar dul istaagno istanbul waa magaalo aada u weyn waxaa ku nool dad ku dhow 20 milyan waxaa ka kooban tahay waqti xaadirkan 9 degmo degmo kastaana waxaa leedahay dowlad hoose u gaar marka istanbul waxay leedahay 9 dowlad hoose oo kala madax bannaan ama 9 belediye iyagu soo yidhahdaan ama territorial municipalities dowladda hoose sidoo kale waxay leedahay dowlad hoose oo weyn oo ay yidhahdaan istanbul metropolitan municipality ama istanbul büyükşehir belediyesi luqadooda markaan eegno nidaamkaas markaad eegto nolosha bulshadu gidigeeduba ama inteeda badan waxa ku xirantay dowladda hoose dadku xidhiidh aad u xadidan oo aad u kooban bay leeyihiin dowladda dhexe shaqada noloshooda badankeed marka noqoto adeegyada aasaasiga ee ka mid tahay transportation ee ka mid tahay biyaha ee ka mid tahay energy gaasta wax ku karsanayaan ee ka mid tahay electricity iyo energy ee leerka isticmaalayaan ee ka mid tahay environment xataa waxa intaa dheer inay qabtaan dowladda hoose weyn ay qabato adeegyo inta dhaafsiisan la isla yaqaano adeegyo caafimaad bay qabataa adeegyo waxbarasho qabataa tusaale ahaan librariyo waaweyn bay degmooyinka ka samaysaa oo degmo kasta waxay leedahay librariyo waaweyn bay leedahay dalxiiska degmooyinka dalxiiska ay qayb ka tahay inay dadka u samayso meelaha ay ku nastaan iyo wax lamida
markaad eegto nolosha badankeedu waxay ku xidhan tahay weliba nolosha aasaasi turkiga waxay ku xidhan tahay dowladaha hoose waxaana saaciday nidaamkan decentralized gareeyay ee maamul dadejinta lagu sameeyey oo haddii dowladda hoose kaliya waxaan hawlo loo dhiibi lahaa dowladda hoosena ay tahay mid hal meel sideenan oo kale ku xaniban waxaa laga yaabaa inaanay ku guulaysateen ama aanay gaadheen yani inay waxaasoo hawlaha iyo maxaan dhahdaa adeegaya ay bulshada u qabato sidoo kale waxaa muhiima oo dowladaheena hoose ka maqan inay dowladdu bixiso adeegyo uu dakhli ka soo galo kuma shaqayn karto dowladda hoose keliya cashuurteeda dadka masaakiinta laga qaado dowladdu waxay u baahan tahay inay shaqaysato waxyaabaha ka shaqaysanaysa waxaa ka kow ah public transportation wanaagsan oo dhammaystiran oo bulshadana u faa'iideeya inay degmada inay bulshada ku soo celiso oo ay u samayso ayaa muhiim adeegyo kale waxaa qaban karta ay dadka muxuu ahaa ay lacag kaga soo celiso oo adeegyada aanu soo sheegnay oo kale wax yar charge garayso laakiin aanay u shaqaynayda laftooda sidii dad profit oriented oo ganacsiyo kale aanay u shaqayn marka waxa weeyaan istanbul iyo wadamo kale oo iyo magaalooyin kale oo badan oo dunida ku yaalla nidaamkan isticmaalaa waxaad ka arki kartaa nidaamkan horumarkiisa iyo caqabadiisa inkastoo dadka iyo capacity buildingka dadku haystaan iyo aqoonta iyo resource kale haystaan ay wada kala duwan yihiin oon arki karno laakiin haddana nidaamka tusaale u noqon kartaa faa'iidada laga gaadhay waxaa tusaale noqon kartaa istanbul oo kale tusaale uga soo qaadano inaynu aragno yani faa'iidada uu nidaamkani leeyahay inaynu aragno taasina ay nagu dhiirigeliso inaynu nidaamka soo bandhigno markaa si kooban saddexdaa qaybood baan prestigekayga u qaybinaynay marka muhiimadda ugu weyn oon focuska saaraynaa ee aan kasoo qaybgalayaasha ka rabnaa waxay tahay annaga sidan bay wax noogu muuqdaan markay noqoto qaabka u shaqaynaya iyo waxtarka marka kow inaad bal aragtidaada ka dhiibato ma tahay macquul in nidaamka somaliland laga hirgeli karo kow arrinta labaad haddii laga hirgelin karo may naafacayaayo waxtar may noo yeelanaya maxaa caqabada ah oo aan hadda annaga noo muuqan oo ku idiin muuqan karo oo aad nala wadaagi kartaan oo ka dhalan kara nidaamkan haddii la qaato maxaa waxtaray aanan ku darin aad ku dari kartaan ee noo sheegi kartaan iyo waxyeelada sidoo kale waxyeelada ka iman karta caqabadaha jira waxyeelada ka dhalan karta hadhow haddii la qaato arrimo noocaasa inaad aragtiyihiina aad hadda nala wadaagtaan annaguna aan nabadgalaysano marka waxaan ku dadaalnaa in insha allah aan qoraal yaro kooban uu ka soo bixi doono kulan handood cilmiyeedkan aan halka ku qaban doono intii ka baxsanay naga soo dadka naga soo kasoo qayb gelina haddaanu muuqaal koobana social media ku baahino aan gaadhsiin karno aan isku dayna sidoo kale waxaanu halka hoose ku qornay 2 email oo aanu jecelnahay in ciddii noo soo gudbin karta ideas iyo fikirro iyo wadooyinka xataa la mari karo haddii nidaamka sidii loo hirgelin lahaa inaad dadkii dowladda iyo ku dhex jira yani nidaamka fahmaya sharciga waddanka soo shaqeeya laftooda inay noo soo jeediyaan ay aragtiin ay nagala qayb qaataan ayaan soo jeedinaynaa marka hadda idinkaan idiin soo gudbinaynaa annaguna xogta waxaan ka urursan doonaa wixii fikriya aragtiyada nagu soo gudbisan marka su-aalaha aynu isla garanno kow nidaamkan somaliland may naafacaya tusaalihiinana inta badan hargeysa ku bes garan doontaa si aynu iskugula fahmi karno